بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلام يوم الصومالية ملك استاي جوجتو أنكو سلام الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعد واحد سلام يوم الصومالية ملك استاي جوجتو أنكو سلام الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت شركة إن الشرايط وحقوق سابسين هاي تمرك برورنا إياه هي ما تدا أويس يلا حرحري لقى قاضي يقول كوده بورتك على شاحن لقى قاضي يقول كوده نبيحكوا قاضي waxaan u sheegi lahaa in ummadda maatada loo hiiliyo oo reer Axmed Dagax loo hiiliyo oo reer Maxamed Mooga loo hiiliyo oo reer Axmed Haybe loo hiiliyo oo sideed xaafadood ee Hargeysa ay weerar ku qaadaan madaxtooyada ina biixi uu bareera inaan ka yara agaasimo sidoo idin la hadlay waa aragtaan uu meel kasta oo banaan dawladda qaadanaysa taasi macnaheeduna waxay tahay yaani wax allaale waxaan doonaan ummadda ku sameeynaa هدا هيريدا غوميسيغا reer Hargeysa iska qaadi weydaan sidaas ay idinku soconaysaa ogaade dal iyo dibad waxaan idinka codsan lahaa ummadda Soomaaliland inay weerar ku qaadaan madaxtooyada oo maatada looga dhiciyo dhulkooda kuwa xirxiran xaq darrada ku xirxiran la sii daayo ee Sheekh Aadan Sunna kamid yahay ee abwaanku kamid yahay ee macallinku kamid yahay taasi waa talabaad عبد الرحمن علدون عبد المالك علدون إن سيد خسال لو سيدايو أو حرمتي سي لو سو عليو أو برعو waxaan u sheegi lahaa burcoy dadkaaga asaas lagu hor xirxiraya iskuulkii Jarmalka ee 20 milyan Jarmalku soo siiyay ee Hargeysa jigjiga yar imika laga dhisayo adigana dimuqraadiyadda lagu la imanayo ee idinka la isku kiin dhufanayo la isku kiin ilaaliyo waxaan idin sheegi lahaa iskuulkii Jarmalka waxa la wareegay jigjiga yar baa loo wareejiyay 20 milyan na waxa la wareegay nimanka halkan ku qoran wala 20 milyan Cabdirashiid waxa weeyaan agaasimaha guud ee qorsheynta Cabdirashiid wax ka kalena waxa weeye agaasimaha waxbarashada waa Axmed Abakor iyo agaasimaha wasaaradda arrimaha bulshada oo Maxamed Ilka Casaa saddexdaan nin isku reerkaaba qontarada qaatay iskuulkii Jarmalkana waxa laga dhisayaa jigjiga yar taana idinkana waa isku maqantiin ogaada taasina waa ta kale waxaan idin sheegi lahaa maanta gobolka Togdheero Somaliland adiga dhisay aad dhistide waxa laale waxaad ku burco waxaad ahaan jirtay Soomaaliya halkad kaga jirtay wad garanaysaa maanta halka taagantiina way saragtaa idinkaana isku maqan taas waxaan idin oran lahaa sida ugu dhaqsaa badan la dagaal ku qaada stationka burco si degdega taliyaha saldhiga dhexe ee burco waa in weerar lagu qaadaa oo Cabdi Malik Culdoon iyo waqande kabtan waqande oo ku xidhan isna enanista haddii si dhaqsaa loo soo deyn waayo de idinka ubadkiina halka dhiga ogaada taasina waa reer Sool xornimadiina in yar bay idin jirtaa ku dadaala waxa sameeysan iska qaada heeriyada gumeysiga iska soo saara nimanka fidmada idin la dul joogo ee Soomaaliland lagu sheegay Soomaaliland jirtaana ma jirto imika taasina waa gobolka Sanaag baa soo haray gobolka Sanaag awal hore Soomaaliland shaqo ilaahay kuma hadlahayn maantana afar reer baa ku degantaan afartiina reer heshiiye reer baa yara firig leh ha ka hadhina waa la duufsaday cidla banaan cidla bay marayaan iyagana u yeedha oo u aqal celiya taasina waa waxaan kaloo idin sheegi lahaa 18 May waa Ramadaan inanka yare gafane berigii hore wuxuu ku sameeyay waad ogeydeen oo 15 ka dhigay sanadkii hore wixii ka dhacayna waa ogeydeen wax aad u dabaal degtaan ma jiro waxa kaloo hadaynayaan xuute oo ururka yiraahdo suxufiyiintaana oo yiri Cabdi Malik ma buu ahayn suxufi malaa wax xuuto waan ku xasuusiye grade 6 ayaa darab aad ku ahayd ninkan maadiga iyo diinigaba ku gabayaya ayaa tiri suxufi ma ahayn hadaa muxuu ahaa bal inaad munaafiq tahay ni adoo grade 6 san grade 8 gaadin oo suxufi sheeganaya suxufigana waa jaamacada la galo Cabdi Malik uu ka soo baxay taana adigu inta ku dhaaf maayo waayo hadaad heega ahayd
oo aad ka baxday nasabadaadii dee aday ku taalla shirkeenna jaraa'id waxaan kusoo gabagabaynayaa niman yahow heeryadan gumaysiga iska qaada ina biixi weydiin badheedha wuxuu u badheedhay inuu dhul ka boobo markii hore waad ogeyd generaal dacas beertiisii imika yaanyadu uga baxday ee suuqan waaheen keeno waa ogeydin inta guriya shacabka uu qabsaday waad aragtaa inta dhul bannaan uu haysto waa aragtaa markaa ninkan waa dhul boob dowladna uma socdo dadna uma socdo maantana wuxuu la joogaa ninkii la odhan jiray madaxweynihii puntland ayuu la fadhiyaa deni ayuu la fadhiyaa markaa ninka noocaasi dee inuu madaxweyne iyo agagaarkiisa soo maro toona mu ahayn waxaanu idin yidhi fartiinna eersada waxaanu idinkaga tegayaa oo aan kusoo gabagabaynayna shirkeena jaraa'id dee ama isdaawada oo marba reer halala foqo ama reeryada gumaysiga 8 xaafadood ee Hargeysa iska qaada sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.